go-aankan waa go-aan aan muddo dheer kasoo shaqaynaynay innaga oo og dadka soomaaliyeed inay wadanka gudihiisa duulimaadyadooda ay xayirnaayeen dhammaadkii bishii march ilaa iyo hadda ay xayiran yihiin dhibaatada haysatana aan ognahay laakiin innagoo ka taxadarayna faafitaanka cudurkan coronavirus ayaa u bareernay in diyaaraduhu ay xirnaayaan taas oo impact ku yeelanaysay dhaqaalaha iyo dhinac kasta dadka dhaqaaqaasiisa alxamdulilah hadda waxaan soo gaarnay xilliga ugu habooneed ee lagu furi lahaa eerboorada iyada oo aad loo taxadarayo sida cad cudurku weli ma uusan bixin ma uusan dhammaanin laakiin xilligii ugu haboonaaya hadda aan furi karna ee ugu horreeyay ee ugu yaraaday ayaa la gaaray tiro kala duwan kadib waxaa laisku raacay in hadda ay tahay xilliga ugu horreeya ee aan furi karna iyadoo weliba aad loo taxadarayo la yareynayo safarada la yareynayo dadka eerboorada isugu imaanaya eerboorka muqdisho oo kale waxaa ka bixi doonta ilaa iyo 6 flight maalintii waxaa kale oo aan develop gareynay si cusub oo loo shaqeeyo oo ah kala fogaanshaha maaskigii la xiranayay gacmaha wixii la isaga dhaqi lahaa diyaaradda gudaheeda marka la galo sida loo dhaqmi lahaa runtii waxaan rabnay inaan wakti hore furno laakiin wadatashi badan markii aan sameynay markii aan dhinac kasta ka eegnay dhinac caafimaad dhinac dhaqaale dhinaca wadamada deriska ah oo xuduudahooda nalaga soo galo oo dadka xuduudaha kasoo gudbaa markaan ka eegnay waxaan istusnay wakti kale inaan u baahan nahay marka waktigii ayaan ku darsanay innagana furitaanka si aan ugu diyaar garowno waxyaabihii naga dhimanaha aan sii dhamaystiranayna oo keliya ayay dib ugu dhacday alxamdulilah hadda waxyaabihii aan rabno o dhan waan gaarnay amisom go-aanada aan gaarayna inaan hawada furno iyo inaan xirno iyo shaqo wax haba yaraatay ay ku leedahay ma jiro mandatekoodana kuma jiro mas-uuliyaddaas annaga ayayna saaran tahay dowladda soomaaliya ay saaran tahay hataa la tashi kuma lihin dhinacaas inaan furno iyo inaan xirno qof aan kala tashana malaha mas-uuliyaddaas annaga ayayna saaran marka wax ka jira malaha waxaa ka mid ah diyaaradda qof alla qofka saaran kruuga iyo dadka rakaabka ah intaba in inta duulimaadka lagu jiro oo dhan uu u xiran yahay face mask in waxyaabaha broshuriska oo kale iyo wixii la taabanayo o dhan aan taaban karin inaan cunto la siin karin dadka rakaabka ah ee saaran ilaa ay kasoo degaan markay soo degaanna in sidii caadiga ahaa loo kala fogaado eerboorka marka lasoo galo labadii mitir la isku jirsado immigrationka iyo dadka kale ayaga la dhaqmayana sidoo kale inay u jirsadaan intaas distanciga la ilaaliyo qof alla qofkii qandho looga dareemo wixii normalka ahaa normal temperatureka qofka jirkiisa ahaa wixii ka badan oo qandho geli kara inaynan safraynin inuusan meelna aadaynin oo dhowr meelooda kala duwan dhowr stage oo kala duwan looga baari doono marka uu eerboorka soo gelaya iyo marka uu diyaaradda raacaya qofka in laga baari doono iyo kuwa imaanaya intaba marka proceduro cidaas cusub ayaan maraynaa haddii ilaahay ka raali wadanka gudihiisa qofka u safrayo waxaan ka baaraynaa qandho iyo symptoms wax calaamado ah inuu leeyahay oo durkaas u wado laakiin ilaa iyo hadda ma jiro wax dhahaya coronavirus laga baaro oo laga baaray laakiin waxaan baaray wax alla wixii na tusi karo qofkaasi inuu xanuunsan diyaaraduhu shuruuc adag ayay leeyihiin waana meesha ugu sahlan ee regulations lagu sameyn karo marka waxaan rajeynaynaa in shuruucdaasi aynan jebinayno qofka jebiyana wuxuu la kulmaya ganaax dhowr level oo